بسم الله الرحمن الرحيم inaad maqashaan baan filayaa saaka safar baan ahay sidaa darteed live-ka caadiga ah ma soo faraysan marka halkan baan hadda wax yar raba inaan idin update gareeyo kulli waa daawan doontaan insha Allah taala waxa ugu muhiimsan oo rabay inaan ka hadlo waxa weeye waa mudaharaad baa ka dhacay maanta markii ma ahayd maanta magaalada Dirdhaba mudaharaadkaas ka dhacay waan soo dhaweynayaa dad Soomaaliya ka qayb galay inta badan oramada mudaharaaday laakiin dad Soomaaliyeed way ku jireen oo waxa loo soo dhaweeyo waan ku faraxsanahay mudaharaadkaas waan soo dhaweynaynaa waxaan tacsi u dirayaa labada qof ee ku dhimatay Allah ha u naxariisto wiilkii iyo gabar baa ku dhintay Allah ha u naxariisto labadaba waan dhaleecaynayaa kuwa dadka sida nabadgelyada u mudaharaadaya laynaya ee xasuuqaya federal police ma joogin meesha waxaan ka wada lii police ma joogin federal police baa joogay marka federal police baa dadka laayay aad baan u dhaleecaynayaa federal police ka dadka laayay dhanka kale waxaa ay codsadeen nimankii ku guuleystay waxa fiican siyaasadda Itoobiya inta badan dadkeenu lama socdaan marka in wax yar leedinka update gareeyo sometimes way fiican tahay arinta aan maanta jecelahay update gareeyo waxa weeye General Samora ayuu rabaa inuu sabhad naga ninka la yiraahdo oo TPLF aasaasay groupka hadda guuleystayna ah inuu bedelo waxaan rabaa in lagu bedelo ku xigeenadii hadda la magacaabay mid kamida saddexdii ku xigeen aad baan u soo dhaweynayaa arinta ayada aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waa arin lagu farxo dhabar jab bay ku tahay Cabdi iyo qowlistadii la shaqaysan jirtay saraakiisha ahayd waa ninkii ugu weynaa ragga la shaqaysan jiray waana wax la soo dhaweeyo lagu farxo marka arintaas waa intaas arrin kale jirto aan rabay inaan wax yar ka dhawaajiyo arrintaas waxa weeye dad badan oo ila soo hadlay ama ii yimid telefoon inta badan oo igu yiri Cabdiilay baan erge ka nahay waxa kale oo inta badan ii sheegaan qole hebel dhiil bay qaadatay ee dhiil maad qaadatid ama nin hebel baa dhiil qaatay dhiil maad qaadatid meesha aan lagaaga kala tagin waxaan u sheegayaa kuwa ayaka shalay anoo kaliya baan dulmiga diiday maantana haddaan keligay ku soo haro wax dulmiga diidahaya waan taagnaanahayaa booskeedii waxa weeye waa sheeko caata ah oo Cabdiilay la yimid oo wax sharci ah ma taqaan wax xaqiiqo aan ku salaysnayn xaqiiqo ma aha waa been cad qof dhiil qaatay oo ogahay ma jirto waxay rabaan dadka inay shaki kala gelgeliyaan ay u kala sheekeeyaan beel hebel baa dhiil qaadatay lacag maad ka qaadatid hebel dhiil buu qaatay waa sheekadii weligood ku shaqaysan jireen waxba kama jiraan wax dhiil qaatay ma jiro ama qaadanaya midna ma jiraan marka waa been cad wax dhiilka kaliya shalay toona niman ila hadlaya daraad iyo saaka waxaan u sheegay waxaan nidhi saddex wax hadduu sameeyo Cabdi taageero badan buu helayaa anu kolley ma taageerayo laakiin dad badan baa laga yaabaa inuu taageero saddexdaas waxa weeye kow inuu jeel ogaadeen iyo xabsiyada kale uu xiro sida Kangoday iyo Kamarsin maxaabiista ku jirta xaqdarrada u xiran inuu sii daayo magdhow uu siiyo kuwii soo xirana uu xabsiga geeyo labo inuu TV-ga soo faraysto iyo idaacadiisa ESTV dadkana uu cafis ka dalbado uu qirto inuu ummadiisa dulmiyay dib weynna uu u geystay uuna ka dalbado inay cafiyaan number 3 inuu mar dambe joojiyo qof inuu qof kale u xiro wala taziru waziratu wizra ukhra sharci gaal iyo sharci islaan midnaba maartay midnaba xalaal kuma aha in qof kale loo xiro ama loo qabto qof kale wuxuu yiri marka saddexdaa sharti ayaan u sheegay ayakuna waxay igala dhamaan waayeen iska daa waxaase waa wax guuda wax adiga gaar ahaaneed sheego sida magti ayayda in lagu siiyo oo kale arrimo noocaasa ayaydii kuwii dilay cadaaladda la horkeeni doona insha Allah taala mag laga qaadan maayo ummadda kale oo dhan kuwa dilay cadaaladda la horkeeni doona waqtigeeda wax aniga shakhsi oo hadda Cabdiilay ayaydii dilkeedii iyo mag aan ka qaadan iyo beelays haysta ma jiraan dan guud baan u hadlay ayaydii oo nool dantii guud
baan haddana ka hadlayaa wax maaragtay dan shakhsiyeeda oon ka hadlayaa ma ay jirto midna waan leeyahay qolyahan ergada sheeganaya min fadlakum ama bilixsaanakum marka dambe eed ii imaanaysaan warqad caddayn ah inaad erge cabdi idiin soo dirsaday bal ii keena ama cod uu leeyahay hebel hebel anaa dirsaday maxaa yeele hadda waxaan u qaatay been fariim in ka badan 3 maalmood oo ugu dambaysa 12 kooxood iyo guruub ayaa ila soo xirita oo mid walba leeyahay ergaan ka ah cabdi I have no idea who is who keebas raalli ahaada internetkii wax yar iga go'ay marka hadda kadib ergada cabdi aad soo diraysa cabdow ergadaada warqad soo raaci inay official adiga ku matalaan ama cod u soo duub lama garan karo keebaa kee ah soo garan qofka ku matala iyo qofka kale ma kala garan karo ta kale beesha madaxweynuhu ama jilibka uu ka dhashay dhammaantood ma wakiil bay ka yihiin dowladda dad badan oo ka mid ah iga soo xiriray taana warqad officiala bal ka soo saar inay beeshaadu wakiil ka tahay dowladda oo erge kuu noqon karaan ayada laftigeedu maxaa yeele dad badan oo beeshaaba ila soo xiriiray oo erge ah oo dowladdii iyo ama madaxweynahan idin dhexdhexaadinina leh marka beeshu inay ayaduna dowladda wakiil ka wada tahay warqad caddayna soo sii si aanu oola hadalno waxaan u sheegahayaa dadka hadda laga yaaba inay soo socdaan oo ergada sheeganaya dal iyo dibadba waxaan u sheegayaa hadda kadib wakhti badan idinku lumin maayo idinkoon caddaynay tusin caddayn inaad wakiil ka tihiin cabdi ama aad qaban kartaan oo erge uu idiin soo dirsado wakiil ah ka tihiin ilaa aad u tustaan wakhti kale idinku lumin maayo saacado badan oo telefoon idinku lumin maayo maantaan arrintaas soo gebagabeeyey halkaas intaasay noogu eg tahay marka intaasaan raba inaan idinla socodsiiyo safar baan ahaa shalay toola raalli ka ahaada maana soo gelin maanta laftigeeda safar baan nahay aniga iyo waxgaradkii dulmidiid haddii rabbi idmo hadhow tolaad airboodka nugu arki doontaan meesha loo socdo la sheegi maayo yaa ninbaa waxaa laga hayaa reerku xaggee mataqaanaa wa'aya baa liyi asagoo safar wadaan maasihi waa la qarin hadda meesha aan u soconno reer dulmidiid galabta waa safar waxgaradkii iyo akhyaartii meesha u socdaan la sheegi maayo waxaa weeye dadka aniga ee caynahaya waad ku mahadsantihiin inaad i daawataan fariintaydu ay idin gaadho waan ogahay inaad qasban tihiin waxaan intaa haddii laydinku dhaafayo shaqooyinka laydinku deynayo guriga aad ku xidhan tihiin FM-ka jigjigaa waan la socdaa mataqaanaa halka raashinka laydinku siiyo waa mataqaanaa waa inaad wada qasban tihiin aad baan oola socdaa waan ka xumahay tacadiga iyo dhibka laydin geysanayo haddii laydinku badbaadinayo caydeeda iyo aflagaadadeedana waxaa weeye rabbi ha idinku badbaadiyo ilaahay ha idinku badbaadiyo haddii intaa ku badbaadaysaan intaasaan ku kala tegaynaa insha allahu tacaala galabta safar baan nahay annagoo wada dhan baan airboodka ka soo geli doonaa live inkastooy dadka africa iyo yurub saq dambe ay u tahay saqdhexe saqbadh haddana insha allahu taala jaradda halkan baad ka daawan doontaan aad baan idinka mahad celinayaa dhammaantiin mudaaharaadka dirdhaw waan soo dhoweynayaa soomaalidu jigjiye in laga dhigaan rabaa asagana insha allahu tacaala waan dhigaynaa nafteenna huraynaa dhammaanteen inta dhimatayna allah u naxariisto in kaloo badan baa ku badbaadaysa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin been cad weeye qof dhiil ka qaadanaya cabdiiley yaa qof dhiil ka qaadanaya cabdiiley ma uu jiro waa been cad weeye wax dhiil ka qaatay ama ka qaadanaya ama la hadlaya ma jirto cid wax shakhsi ama u ordaysana ma ay jirto waxaa weeye waa dulmidii dadku dhibaatada iyo dulmiga unbaa la diidan yahay intaasaan kusoo gabagabaynaya aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu